kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo daafaca caalamka ka joogtaan iyo si waliba oo nala socotaan ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo aan kaga hayno dalka Ukraine iyo dagaaladii u dambeeyay ee Ruushka oo ku soo qaaday wadankaasi Ukraine iyo caasimadda Kiev sida ay ku waabariisatay subaxii saakaha qodobada wararkeena ugu doorka roon waxa kamid ah caasimadda Kiev waxa la sheegay in ilin kasta ay ciidamada Ruushku ku hareeraysan yihiin sidoo kale waxa la gooyay bakhaarkii cunada ay ugu weynaa dalka Ukraine halkaasi oo Yurubta kala xitaa saameyn weyn inay ku yeelan doonto la rajeynayo waxa jiray cunaqabatayno kala duwan oo ay ugu hanjabayeen Mareykanka oo ugu hanjabayay dalka Ruushka halka Ruushka laftirkiisa uu ku soo rogay cunaqabatayn dalka Yurub aan raahne Yurub oo dhan uu ku soo rogay qodobadaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya wariye Cukaash oo stuudiyaha lagu sugan Cukaash soo dhawow waan dhawahay markuu horeysa hadii aan ku bilowno ilaa hadda waxa socdo duqeymo xooggan oo Ruushka uu u geysanayo caasimadda Kiev isaga oo waliba duqeymahaasi la beegsanayo goobaha shacabka ay ku badan yihiin waxa kale oo arrimahaasi lagu micneeyay inay tahay musiibo bini'aadanimo oo ku saabsan in goobaha dadweynaha oo Ruushka hadda u beegsanayo waxa kale oo jiro in bakhaarkii ugu weynaa cunada dalka Ukraine in mataqaanaa dhulka uu ku daray isla markaasina subaxnimadii saaka la arkayay qiiqa iyo ololka ka kacaya bakhaarka kaasi oo si abuuraya ama si dhalinayo in musiibo bini'aadanimo halkaasi inay ka dhacdo waayo waxaan ognahay Ukraine hadda mataqaanaa dadka inay iskaga qaxayeen guryahooda inay soo food saartay gaajo iyo macluul fara badan taasi oo jirta hadana goobihii yaraa ee wax lagu keedinayay sida bakhaarada waaweyn iyo hadda mataqaanaa Ruushka uu bilaabay inuu beegsado taasi marka xilligan waxay ku soo beegan tahay iyadoo dagaalka uu sii daba dheeraaday iyadoo adduunka dhan uu ka digayo in musiibo halkaas inay ka dhacdo aan la qiyaasi karin iyada oo hadana dalka Ukraine hadda uu ka jiro qabow aad u daray guud ahaan dalka Yurub kaasi oo dadka hadda aysan haysanin koronto aysan haysanin cunno iyo waxyaabo kale oo fara badan in aysan haysanin hadda marka duqeymahaasi xooggan hadda ciidamada Ruushka maalmihii u dambeeyay waxa ay wadeen inay mataqaanaa ay ku soo xoomaan ama isku imaadaan afafka hore ee magaalada Kiev iyagoo oo doonaya halkaasi inuu iskaga cararo madaxweynaha Volodymyr Zelensky laakiin isaga laftiisa wuxuu isku dayaa inuu si adkaysto halkaasi uu si difaacdo in kasta oo aysan suurtagal ahayn in halkaasi uu sii joogo dhibaato badan shacabka ilaa hadda mataqaanaa ay soo gaarayaan haddii aynu eegna dhanka cunaqabataynta Yurub uu saaray Ruushka maalimadii shalay isla markii uu ku dhawaaqay cunaqabataynta iyada inuu Ruushka xaqiisa ay ka soo baxday waayo waxaan la wada soconay in maalmihii u dambeeyay iyo markii dagaalku u bilowday in Ruushka lagu hanjabay in cunaqabataynta la saarayna kuwa badan Yurubna ay saareen Mareykanna uu saaray marka hadda waxa soo baxday in Moscow xilligeedii iidan matana hadda in la joogay oo cunaqabatayna dhankeeda ay ku bilowday Yurub kuwaas oo matana ay ka mid tahay cunada iyo shidaalka iyo waxyaalo fara badan matana xaggeeda ka imaanay markii shalay ay cunaqabataynta ay ku dhawaaqday isla markiiba supermarketyada iyo bakhaaraha weyn ee Yurub markiiba waxa ku dhacay matana waxa ku dhacay sixir barar dadka oo dhan waxay ku soo xameen bakhaarada iyo matana goobaha supermarketyada iyagoo ka adeeganayo oo qaarkoodba alaabtii meesha taalay ee goobsi ay noqotay la waayeen marka cunaqabatayn aan la mahdinin buu mataqaanaa Ruushka uu saaray Yurub taasi oo dhibaato weyn ku keentay maadaama isaga dhaqaalihiisa uu horay u leecay diyaaradiisa loo diiday duulimaadka lacagihii mataqaanaa qalaada dalka soo galiyay in mataqaanaa ay isbedel ku imaaday in bangiyada laftooda mataqaanaa wada shaqeynta in la helo bangiyada adduunka inay meesha ay ka baxeen haddii aynu eegno dhanka Mareykanka ilaa hadda wali wuxuu ku hanjabayaa in cunaqabatayn hor leh oo dhanka cuntada inuu saarayo Ruushka Biden baa saaka ku dhawaaqay arrinta iyada isagoo oo yiri diamondka iyo cunooyin kala duwan ee ka imaanaya Ruushka cunaqabatayn ku soo rognay mar dambana mataqaanaa lama keeni karo wadamada reer Yurub iyo waliba Mareykanka intaba taasina cunaqabataynta Mareykanka la saarayo ayay mataqaanaa sii ziyaadinaysaa haddii aynu eegno dhanka kale ee iyadana ku saabsan wada hadaladii maalmihii u dambeeyay ka socday dalka Turkiga wada hadaladaasi ay ku wada kulmeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Ruushka iyo Ukraine iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo halkaas mataqaanaa ku soo dhaweeyay ama gool u fidiyay labadaasi dal inay ku wada hadlaan si ay gogol xaar u noqoto in labada madaxweyne iyaga laftooda halkaas lagu hadalsiiyo
waxyaaba la iska soo hadal qaaday ko wax ka mid ahaa in dadkaasi gargaarka in loo ogolaado kadibna mataqaanaa ciidamada in la kala qaado taasina ay keentay in ruushka uu ka biidiiday oo uu yidhi maya wixii annaga aan rabno hana loo sameeyo haddii la sameeyo sida annaga Premier League uu ogol yahay kadib waan ogolaanaynaa wax kasta oo mataqaanaa Ukraine ay rabto kow waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha hadda joogo inuu iscasilo oo iska taga meesha laba in mataqaanaa midowga ay sheegeen in la midoobayaan midowga Yurub iyo waliba NATO ay qayb ka noqonayaan inay ka tanaasulaan isla markaasina haddii intaas ay ogolaadaan in Ukraine ay noqon doonto dowlad madax bannaan ruushku iskaga baxayo say doonaan dalkooda iyaga ay u maamulanayaan laakiin inta muxuu ahaa uu hadda madaxweynaha hadda talada haya Vladimir Zelensky uu ku sii adkeysanayo inuu Yurub qayb ka noqonayo ama uu ay ku biirayaan NATO in marnaba aysan dhici karin arrinta iyada balse ruushka uu ka xiga dagaal in uu sii wado adduunka aad bay arrinta iyada uga dhibaato u noqotay maadaama ay filayeen in wada hadalladaasi hordhaca ahaa in wax fiican uu ka soo bixi doono inkasta oo la yiri mar kale ayaa la isku soo noqonaya iyadana waa la warsugaya waxaa jiray in Ukraine ay codsatay in ciidamo ajaanib ah inay ka qorato dalka dibadiisa waliba ugu badnaayeen Afrika ayna dalbadeen ciidamadii hore dad muxuu ahaa retire-ka ahaa ama shaqo joojinta hore markaa ugu dhacday oo iyo ciidamo badan oo mataqaanaa soo maray dad badan ciidamada soo maray ciidamada ka baxay in ay qoranayeen hadda dadkaasi waxay gaarayaan ilaa 20,000 oo mataqaanaa yaadiya isdiiban gelisay maalmihii soo baxayna waxaa la sheegayay in qof kasta oo dagaalka ka qayb qaato ajnabi ah in yoomiye la siinayo $2,000 taasi marka waxay keentay in dadkii ajaanibta ah isqorayay inay aad u bataan ay sarana u kacaan iyadoo oo Ukraine ka faa'iideysanayso doonaysana dadka iyaga u sameysay laan gooni ah oo ay hoos tagaan iyo goob gooni ah oo mataqaanaa ku saabsan inay dagaalka ka galaan iyagoo oo wali u diyaariyay hubkii ay ku dagaal lahaayeen iyo goobi ay ka dagaal lahaayeen shuruudihii ay la galeen ay gooni ay tahay dad badan oo Afrikaan ah iyo hadda isdiiwaan galiyay doonayaan dagaalkaas inay ka qayb qaataan marka guud ahaan dagaalka ka socdo Ruushka iyo Ukraine hadda waxa uu galiyaa waji cusub kaasi oo ah in cunaqabataynada ee hadda labada dhinac ay saarayaan in laga cabsi qabo in haddii maalmaha soo socdo uu Kiev la wareegi waayo Ruushka in uu bedelo sun uu ku buufiyo magaalada waa waxyaabaha hadda caalamka uu aad u walacsan yahay bay matqana ka mid tahay dhibaato weyn keeni karta ala kulli xaal waxay noqotaba dagaalka hadda Ruushka iyo u dhaxay Ukraine hadda waxaad garan kartaa in waji cusub in uu yeeshay in Ruushka uu wali uu ku hareeraysan yahay caasimadda dadkana uu u degayo uu leeyahay iskaga carara magaalada iyo mataqaanaa hareeraheeda taasi oo dhibaato weyn soo foosaaris aad garanayso guryaha waaweyn iyo goobaha dadweynaha isku imaada arkaysa in mataqaanaa uu beegsanayo oo uu baabi'inayo waxaan ogeyn musiibadii mataqaanaa Mariupol ku dhacday maalin dhaweyd oo sida artay loo galay dadka way la socdaan dhammaan marka ala kulli hal waxay noqotaba dagaalka hadda waxaan rajin doonaa in hadda wajiga uu ku socdo in wax badan iska bedeli doono aad baad umahadsan tahay wariye Cukaash waxaan rabay inaan su'aal yar kaa weydiiyo maadaama ay dalal badan Afrikaan ah kusoo biireen dagaalka sida sheegtayna ciidamo tababar horaan u lahaa ama horaan dagaalyahano u ahaa uu soo xushay ama uu codsaday Ukraine dalka Ukraine u codsaday qaybihii ay ka dagaalami lahaayeen iyo dabcan si u howlgali lahaayeen iyo hubka ku dagaalama la diyaariyay dagaalkan wax ma ka bedeli karaa dadkaas maya wax saas ka bedeli karaa laakiin waxa loo baahan yahay ciidan dheeraad loo baahan yahay ciidanka dheeraadka loo baahan yahay marka wuxuu ka siyaadinayaa ama waxa u tarayaa in markii la qiyaasay ciidanka la yiraahdo intaas oo kun oo ciidan bay haystaan iyo mataqaanaa ka wacin kartaa mid kale hadii laba qof hata ay hesho xabadda mataqaanaa ay kula wadaagaan oo ay kula ridaan wax badan mataqaanaa ay ku taraysaa waxana ay ku qabanaysaa laakiin waxa ka sii xun ama ka sii daran in ciidankaadin ay dhamaanayaan ciidan dambe oo muxuu ahaa dib ka waxaynayo ama mataqaanaa ciidanka mataqaanaa hadii dabar jibin ay noqoto hadii mataqaanaa ciidanka intii la jabiyo ciidanka lagu kaalin aysan jirin in dhibaato badan mataqaanaa ay u keenayso marka ciidanka hadda ay qoranayso kaliya waxay uga baahan tahay inay u noqdaan hadii ciidankaasi baabo in mataqaanaa iyaga laftooda ay qayb ka qaadan karaan oo waayo hadii meeshan uu qof uu ku joogo waxan bay ka tarin laakiin wax saa u sii weynaaday sii kordhinayaan malahan waayo dadka ayaga niman dad wadaniyiin ah oo dalka u dagaalaya maahan waa dad kharash raadinayo ninkan kharashka raadinayaan inuu dhinto mar rabo inuu kharashkaas helo iyo mataqaanaa doonaya marka hadii aynu eegno dhanka Soomaalida imise qof iska qortay Soomaaliya iska muqorin waayo Soomaalida hadii hadda la qoro oo dawladda ay qortaan ay ku bilaawdo dadka saar geenina
waan ogeyn wixii ka dhacay markii la geeyey ciidanka intii la qoray la geeyey qatar iyo ciidanka intii la qoray Eritrea la geeyey wixii mudaharaad iyo qayli ka dhacday walaal marka Soomaalidu wixii way rabaan haddana ma rabaan marka ay ka faa'iideystaan dowladda iyo ku eedeynayaan oo ay carruurtu waa la gaatay bay ku leeyihiin ruushka marka wadamada Afrikaanka ka qayb galaya dib u ka war hayso cunaqabateyn qabateen ku suuraan tarkiis la shacabkoodii bay dirayaan oo ciidamadooda baxaya may kuma soo rogayo waa dhibaato ka weyn baa haysata basaga Afrika cunaqabateyn u saaro waxa ma sheegayso laakiin waxa uu darma wadamadan reer Yurub uu daran asaga waxa uu daran kuwaas way oo doonayo inuu cunaqabateyn saaro inuu cadaadiyo inuu markaa dhibaateeyo laakiin wadamada Afrikaanka markuu waa ka soo dhamaado cagtu marin kuwa waxa lama bambaanayro ku furan aad baad u mahadsan tahay halkaasi waxaa inagu dhan war waxaan kaga haynay dalka iyo dibadiisaba gaar ahaan aan diiradda ku saaraynay xaaladda Ukraine tan kulankeena xiga waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo